gudoomiyaha fanka ahayna fanka dalad weyn waayo horta fanka isku soo koobin adiga iyo han fresh ani dawge waxa isku haystaan farxii ka weere baash way weynaatay Naciimo Joker baash waxay isku bedeshay in faalis garuub ma fahanteen hantan fresh kan dawge bal oo TikTok ka soo cusboonaatay hada fanka ku soo koobin fanku waa weyn yahay majaajilistu leeyahay abwaan buu leeyahay musician buu leeyahay laxamiistu leeyahay oo aan gabar adeerkay dhalina korkayga saa ugu feenato yaa orgiyo ana hadda kooran ku sheegay dhuqdhuqo dhixyaala ka tahay social media dhuusa ka tahay fanka meel cariiriya jecesha anna maalinta go'aan gaar waxayd maalinta ruufiyaannimadaada adreeska gurigeyga iyo informationadayda aad dadka u dirdireysay maalintaas go'aankan gaarana ma taqaanaa dhuusa ma tahay ha era noqona anna waxa gashaba waa gala cidda doonta la hadalna waxaan ku dhahay Biden jeegagu bixinayo stimulation jeega hada ka soo hadasho jawaabta ana ku soo siinay Naciimo Joker oo sheegatay inay farxii ka weer lagu halgashan doonto sababta ay ka wadanay kulli hadda Naciimo sida ka arkeeno kin jaamac ku marmarsiinaysa oo farxii ka weer waxay u qabtaa ciil hore sida hadalkeeda ka dhadhansanayno bal ila dhageysti ila daawaday ninkan tutsi hada la hadasho hutsi oo jawaaba I don't care am ku dhahay ani dabeecadeyda meeshan qabsada ani waa la ii gooyaa that's who I am hadda soo qabiil ugu ma kala heelinaysid dalmaryare oo walaalka aan galno marka commentiska dadku waxay soo qoreen 5,000 oo qofooda adala soo qoreen qofkan wuxuu dhahay in adeerteen Naciimo qurux geesinimada la gaadhi waaye ayna sidoo kale rablaaw gashay da'muun ka soco ka weere ma gaartid qofkan soo dhahay ka joog qofkan wuxuu dhahay wallahi Joker dirac baa tahay boqorad dumarka ayaa tahay codkarna waa tahay respect ayaan ku hayaa hadaan nahay teamkaazo qortooyo qofkan uu ku soo qoslay ku ifraax sababta soo qoshada taqaan sistare ka weere waa awlaad ku lahaa awlaadul caasima tuulo kama imaanin ee iska sax Naciimo ooyeysoy lambar qofkan uu qoran farxii ka weere maad gaartaa qofkan soo qoray ku nijaad naagti ceeb waxaas ma la akhri karo ka soconayna qofkan waxaa dalmar FIFA ka weere iyo dalmar waa dad hawiye isla ah qofkan wuxuu dhahay ka weere ma kaftanto ee ka joog Naciimo ayo marka jawaab ku siiso makeup inta soo marsato soo ooy wallahi daacad baan u qoslay cousin kan xilbaanada waaye idana alwalu ogaa ina jinni qabiil qabtay kula FIFA weeyna farxiyo fanaan buuxa weeye qabiilada qof aan wallahi filo imeeshid aydan reply u gash filo ma u baahanahay daawashadaada iga badan runta u sheegto Naciimo leeyahay qofkan wuxuu dhahay liibaan Allah warsan gali dhul baanta ma jirteen daarad Ismaaciil naga badan farxii waa naag intuu fanaan yahay ayay fanaan tahay adigu xagee fan ka soo gashaa fiina ka weey farxii ka weere farxii qurux ka weere waxba maysan ayn doqonay intee ku xanuuntay kule fartii meeshii bugtay idinka waxa waa baasha daawadayaalka noqda ma fahantay comment ku dhigliyaalo gaaga ku sameysay waliga Naciimo Joker waxbay sheegaysaa waxa leedahay dalmar yare waa la wada yaqaanaa inay cunug ku sameysatay dadka dhan way wada og yihiin ina wax mar hore laga soo gudbay oo nolol maalmeedka oo maxaa la dhahay kamid ah bay hadda sheekeynaysaa qof walba wuxuu hayo iska sheegaya farxiina gooni u hadlaysaa Naciimo Joker gooni u hadlaysaa hadda waxa soo sadeexaysay Faadimiini marka aan dhageysano farxii Joker waxay leedahay farxii Joker lee ku wada Naciimo Joker ajalayd naagu qaba ka har ilaa hadda laga kari laaya saas oo ugu daba wado Soomaa waxa hadda qabyaalad ugu hiilinayso de qabyaalada ama kiin jaamac ugu hiilna
taas ma in adeerkaya dhalay secondly fanka gadaalka gaar waxaad u dhihin kin jaamac aabaheedna waa fanaan ayaduna waa fanaan waana dhal fanaan hodan cabdiraxmaan dheere waa dhal fanaan aamina cabdullaahi waxa dhal who are you adu fanka xagee dabada ka soo gashaa daba yaroy fanka xagee ka soo gashaa daba yaroy adiga where are you come from to the fun yaa fanku ah yaa ka soo gashaa qof fan ama talent ila anaa kuugu sokeeya hooyadaana ma jarteen baa wadaagnaa xagee fanka ka soo gashaa adiga daba yare farxiyo soo jawaabto waatana waxay leedahay ma soo hambalyeelin naag lagu adeegsanayo waaye babwa marka afiirna ayadana sanku soo hambalyeeya afqalaa cabaroste aniga cunugayga caayay afqalaa oo ka adag yaa wallahi baasha waa isbedeshay marka hore show farxiyo waxay ka hadlaysay waxay ahayd show bay lahayd show baan kansalnay oo aan ka joojinay ninka la yiraahdo dalmar kale showgii waxa markii la waday baasha naciima soo gashay naciimana waxay leedahay kin jaamac waxba kama qaadi karto xam kama bedeli karto baasha siisas la soo ogaa farxiyo naciim haday tahay waxay ku soo dartay farxiyo inay meesha gashay ka dabageli doonto ay ku noqon doonto sida hawada anaka wixii la isku qabsado timir balaf baa ku jirto islaamanka ayaa iskeeni doono waxa waaye naag wixii saaxiib la noqda dhibanay wuxuu soo qaadanay inuu dambi ku galiyo oo waxaadan adigu kaliga aadan weliga ugu samaysan inuu ku gelish sida in aniga ayada hadda isoo caayayso kale wax iga dhimayso iyo inay wax ii maaragtay ii dhimayso oo wax iga dhimayaan oo kale iyo farxiyo waxay sheeganay in naciimo marka hore soo caayday ayada dambeesh ku jirin marka aan dhageysana hadalka farxiyo ayadana farkiisana halka dhigtay Allah maraya ka taxaajiya la isaga jeedaaba wala mi jecel qofkan qaybta la soo dhiwanahay farxiyo xisho walaalay wuxuu dhahay qofkan naciimo joker markay kabta xaaji dandansata bay dadba isku gubtay dhahday qofkan wuxuu dhahay nafaqaysanaya maqaanka iska daa ilkaas wallahi buusan ku jawaabin kabta xaaji afkeeda walaca ka baxay wallahi laan dheero curudkaagi watan kabta xaaji leega kan ka soco alla cadaabta uma dhinna kulaha jugta culus afqalooc iyo ayadaaba ku qofka maxjoonayo mar naga taga halkum oo tamag joker bay gaadhaa waa yaabay adeer ord meelaha yeekada iska xiriiro qof walbo cilad buu leeyahay Soomaaliya meelaha ay ka yaqaanaan ka caynayaan mar gabar ma tiid hawar ayaa tahay usnaaya okay qofkan wuxuu soo dhaay qoslay kabta xaaji lajan wallahi ma jecleen kulaha ma jeclaan jirtay kulaha ma jeclaan jirtay hadalka waxa ka wadaa qaldan qofka walaalkaaya hadda dambi hore uga gashay maxaad mid kale u sii dooray maxay ka daba dhigay aniga adiga nina tahay anaga waranahay maxaa dhacay wasooran waxa fiirinayna haddana hadallada wali way sii socdaan oo la isla dhaxmalaayo qof kaleento wuxuu ka hayo marka farxiyo waxay eedeynaysaa ilkaas oo ay leedahay wiilkaygu caayay waxa uu ku tilmaamay marka ciyaarta macday Soomaalidu oo kula ogaadeen oo lagu la fahmay farxiyo way soo jawaabtay inkastoo hadda midka naciima raadinayo video kale ku soo jawaabtay okay qofkan wuxuu dhahay views rise or Soomaali badana markaad kabeer mid ma kula jugta culus haday alcabaas aragto wax kasta laga sameeyay soo caynaysay inuu qofku soo diray oo aan adigu maskaxdaada cay inaad cayda adan ka keenay commentiga agleena oo ogtaana reer comment leenahay dheerarka dhaq na ka har ilmaha ka yar ada dhali karta naciimo adoo kala maahay kuma ka soconeena iskiifayahay ka dhamo ilkaas iska celin naciimo joker xaatay waa laga ogyahay qofka
ilkaas haduu liiska baafka عمل آخر كرو نانك إسكعيل رف قلاع أو كلمة ستدي جواب سي عين وساي درجوي ولا أعرف كان درجو بحثه عادي ما نانك إسكعيل كوانينك إسكلافه أفقلاع أو كلمة ستدي الكعصو كلمة ستدي نادى هذا القرآن واسحنت اللي بحلا ما أبو دبيري الكعس هذا كلمة جيو دو كون عاي حدا ويندينا قرح بدن oo tiin kan wax soconayna ay ka codka farxiya dhigeysanayna weligaana aadan samaysan kuna dhicin anigu waa ogaa inuu afqalooc ka dambeeyo kugu adeeganayo waa ogaa investigation fiican sameeyay waa soo ogaaday ma rabin wallahi inaan publish gareeyo oo dadka u sheego laakiin midaan uurka ku haysto ahaa maxaa ku soo haray xalay markaan anigu shaaciyay on dadka iri waa idin iftiiminaya gabadhaan oo aniga 2018 markay imaatay ilaa iyo 19 kiyo 2020 gabadhaan waa isla joognay ay caayil hayde ha 2021 marka afqalooc ku soo biiro nolosheeda ay caayay markaan iri oo dadkii ay baraarugeen hoostu kaaga jiray asoo dhareerko dhiliq ka leeyahay oo ku yiri waa la fahmaa hadda kiriyad garay story ka sameeynaagta laakiin hadda iska isoo weerarleed wallahi ku cafin lahaa laakiin waxaan ka xumahay in lagu adeegtay in lagu shaqaystay ya inaad dabaal tahay odan aqli lahayn markay had sheekada intaas mareysay farxiyo hadalka intaas soo dhaaday kadib Naciimo inay soo hadashaan jeclahay videoga Naciimo ku haysatay eelada gudoomiyaha fanka ahay xoogaa widaajinaysa gudoomiye fan matiida dhuusada fankaata ruufiyaanka fankara waa tahay wallaahi oo billaahi oo tallahi habeenkii ma seexato inta fanaan mag adduunka joogay wacdaa wareen oo kala geysa intaas darisa ahayn dad ehelo isxushmeeya ahayn waa naagta informationkayga iyo addresskayga iyo telephone numberkayga iyo familkayga iyo hooyaday Allah u naxariistay informationkayga iyo gabadhayda meeshay joogto iyo iskuulkay dhigato iyo waxaas oo dhan naagta u geysan ninkaas dagaalna waa ruufiyaanimo heeray ka gaartay oo codadkeedii aniga ninka inta la iiga soo qaaday gurigayga la iigu keenay kaas ani qabyaalad mad 100 qof oo fareen aan leeyahay qabiil kasta hawiye daarood isaaq fareen dhisan leeyahay information Naciimo waxay tabanaysaa information laakiin Naciimo ayaa mid ku dhahay marka farxiyo meel kale aad ka weeraraysaa oo ayada waxa sugaysay inta Kenya ama qof ka weerarayso ama qof la dagaalayso marka ciil horaad u qabtay hadalka saas u dhigan yahay mar commentiga fiirino gabadhan juucraal waxay soo dhaadanoo habo wixiina hoos u dhamaysta bahda fanka isla tihiin dagaalkiina dadka ha tusina saas ayay ila qurux badan sax waaye taas ku qurux badan dagaalkii waxa idinka dhaxeeyo hoos u dhamaysta qofkan wuxuu dhahay Soomaali qofna qeyrku ka shaqeynaa qofna caawaay dib dhaliyo waay ka dhamow ka weeray ma gaartid waa qof dadkeeda wax u qabata adiga ilaa iyo hadda sharci haysan ma ahan oo dadkaaga wax u qaban xitaa waalidka keens USA waalidka ma keensanaa leeyahay qoftaana ku soo qosashay muddo amana ku soo qoshay kuwin qabyaalada hawarto wala qofka qosululiyo qabyaalada hawarto taagayahay qabiil adiga laga waayay farxiye laga ma helayo qabiil adiga laga waayay farxiye laga ma helayo kala qof walba qabiilkiisa saa yaqaano bahadil waxa kugu filan in aysan ku soo jawaabin wana soo qoslay qofkan farxiizona fifa farxii ka weeray sakin la qula wala inaad gaarin kin jaamac cid u baahan malaha qof inaan aad tahay Allah ku caafiyo farxii idna macaanin kula video ee farxii wax ku caanaysan xataa ma arkin fikirkaas waa kula qaba laakiin in xoogaa dal margaleysa u maleena Naciimo kuleeda wax qalad ay ka tabanaysa farxiyo oo ay leedahay addresskaygi iyo maxaa la hayay gurigeygii iyo nolosheedii ee u geysan ninka isageen ilaa yaqaan oo ahaa ninkii ahaa hada qaldaneen daahir cali soo marka
farxiyo kolay saas ku haysataa naciimo saaniga leeyahay aydan hadalkeeda aan ka dhadhaminayo yaa la ii keenaa la dhahay qof waxaa jooga guriga ay isla joogtiin kas aniga iyada isku ceeshaa cunin isku meelaan joognay oo hoostaada ka shaqaysanaya jira ninka u adeegaya qabyaalad waa tay heerkaas ku gaarsi aniga adigana na kala fogeysa ka dhamoo kiin jaamac najaasay marka farxiyo waxaa ku leenahay naciimo waxaa ku leenahay farxiyo waxaa ku haysatid waa midaas oo labadiina aad ku kala tagteen in information gurigaaga bixinaysay soo marka kiin jaamac ma haysato kiin jaamac adaa u maray meeshaas ka weerartay hadalka asaan aragnaa haddii aad farxiyo ilmahayga la soocaya leedahay oo video ilmaha ku caynayso live-ka jiray wax kasta soo sheegi lahayd already waa soo tiri mar horaa samaysa adi mar horaa samaysa adi mar hora ani gabadhayda mar horaa soo cayda wiilkaygana xalad cayda dalmaraa ii sheegeen aad jeclaan jirtay baqbaqbaqbaq aa ku samays hadallada markaan dalmar iyo anigu aan heesaha isla soo saarnay 22 alifki hadallada dadka vanisku waxbay iska kariyad garayaan dad bay isla jeclaadaan beema dadka horta mararka qaar waxbay isla jeclaadaan marka anaga fiirino markay hawii iyo daaro iska ka dhalaanka walaa inay cidna ku soo agmarin farxiisoon umad matiyaada dadkaas ku sii duroosaa war nimco waa gabar xanuunsan oo afkeeda iyo futadeeda iska waqtigaas kaga luminin naagtaan raaginimo ka muuqato wallaahi hada laguma gaaro farxiyo jugta culus dhiiqo nimco jugta ooyinteeda sugi la ahay dalmo waa wiil hawiye adna curadka hawiye baa tahay siista saaxiibtinimada ha waarto codkar farxiyo qofkan codkar waa dhahay jugta culus ayadaaba seexan jil jirta jugta culus ayadaaba sagsa jir jirta qofkaa taagan yahay caynayo kabeedanaa karti leh guuleyso waa dadka ra'yigooda commentiga kusoo bixiyeen kan waa isku fiican yihiin kan waa isku fiican yihiin iyo storyada fanaaniinta laga sameeyo aad adigoo cimrigaasa aad rabtaa inaad qof ku caydo story caadi ho just dadka famous ka laga sameeyo way isla jeclaan marka farxiyo iyo naciimo joker waxay isku haystaan waa wax ay gooni ah oo ka baxsan arinta showyadii kiin jaamac iyo dalmar koley waxaa meesha soo gashay faadimiin arahadeeda fiirino masik inaan diraa rabo ma iska dhaafaa ma diraa afka cunug kula mis inaan diraa rabo ma iska dhaafaa mise waa gal maama gal ma dhawaad diraa ilaaha deeq badane soo dir waxaa sheegayaa dalada fanaaniinta Soomaaliyeed sama laga fiicnaa saaxiibay laba qof ay saysatay ku soco laakiin aan idin sheegayaa anigoo ku hadlaya magaca fanaanimadayda Faadimiina Sheeqilowle waxaan idin leeyahay fanaaniinta waaweyn oo hore adduunkood soo dhaqdeen oo showgood iyo waxaad soo dhigteen inkasta meel aan fadhiistaano fanaaniinta yaryar oo hadda garba iska joojino salada magaalada lagu fasaxo kale wixii comment aad ku soo galaafin wariya Faadimiina waa dareemoona waxaan ugu sameynaysid dameer iyo doctor kula ha dameer iyo dockeerba danka lagu dhuftaa jireerta ka dhaxbax labada qof ay haysta ama kala celi ama hus dameerad yahay dalkiisa saaxiibow hadalkaas laga qurax badnaay wax fiican la soo qoraday wax la qoraayo labada qof kala celi ama musalla laakiin ayada naftirkeeda caysay dhinacna waa kawaaninuusa dhinacna waa kacaynuusa macnaheedu waxa wax qaswaaye qofkan kale wuxuu soo dhahay hadalka inta fahansan inuu farxiyo ka weer ku socdo laagta saara queen dal fanaan jirarta maxaa ka qaldan masar badana kula dhukuro jikin jaamac ay ku naxday joker sunta ka ilmeysiisa dhukuro
dhagaha free ah dhuusada fanka maqlooysa kula wareer maxan xashiish kuleel ah soo cabta caaw free dhagaha ka weer dhukuro free dhagaha maqal ma jira dhuusada fanka loo bixiyay magac waaybo qasha dhuusada fanka ku maqasha free dhagaha dhukuro maqal ma jira dhuusada fanka meel fadhiiso waxaad maqlaysaa dalmar iyo kin jaamac sheekadooda miyaa runta kugu jecelahay سنة للسعودي فنانين تيرير قبل يرير هاد صوب حايو هلا صوب حيو يلا وريرني يفهموها السنة وما ليهانو أني دريموها يا ku jeedna anaga xataa oo maqloohayna markaas baa idin leeyahay hadii farxiyo oo leh beena aan ka sheegan ku dhahay farxiyo waxay leedahay kelmad beena ka sheegay kulay dhaaranaysaa waxba jiro socod wanaagsan kaanol fariin kama qadna ilaahu hadan hal beena ka sheego caawa nabad aan ku seexan dibada bar Allah arkin wallahi iyo billahi talaa soo magac ilaahay ma aha inaan been ka sheegin saadu story videogan farxiyo videogan waxa lagu aragno dadka la duwan baa soo dhigay walaalkay qofka soo badiyo dhahay xanta ku socoto meena xanta farashka walaana nool farxiyo dhahay ka weere malyan jeer qofka liit in ay soo jawaabto ma ahayn sax waaye qofka daamar baa aaminsantahay inay ka liitin oo soo jawaabto ma ahayn so you are saying 9 ayaad ka jirtaa kula subhanallah dadaalka markay Soomaali burburtay xijir baan jirtay walaalo xisaabtaada naga soo sax hadaba been adiga la hooyada markii la dhahay tashba ku hays okay qofka kale hada iska day gabadho sax waa iska daa farxiyo anaga sax kuleenahay dugta culus waa naf aan maraadinaya kule labadooda bacaan uma baano laba qof oo kala yaqaano na xisaabta iska sax kula horto inta been sheegtay maxaa tii 2004 waxaan jiray waa jir kartaa macquul waaye 40 sano 45 sano jirka aadama 84 shaqada balasteen aan garanaa oo dad badan ku yaqaano Highlander maba la isugu faanaya kula ana dadka caanka ah rij aan u haystay kule rij oo qof walbo wuxuu la tacaalayaa gurigiisa iyo noloshiisa caadiga hadoo caayina xataa inta ay xalay sameeyay marka video ay ka rogal celinaysa farxiyo aan daawano markuu ninkii kugu qabsaday afqalooc uu ku yiri aan kaba yar oo ay soo fashishay waxay ku soo fashay Facebook ana anigu aan ka dambeeyay caydeeda ay sheegtay story samay xarashan u hayay 3 sano ay caynaysa dheh story sida aad u samaysay xalay ya wallahi inaan u sameeyay story kama sameeyna laakiin xaqiiqadan ka hadlay sababta ma u caynaysan taqana Maraykan isku maraan nimid Maraykan isku maraan nimid 2004 kii nimid I think ina 5 kii ahayd ma waqtiga imaatay adigana ma 6 kii moog isku maraan imaanay hooyadayaan wadankan isla imaanay iyo walaalkay hooyadayaan garab taagnaa caawinayay aan warehouse u shaqo tagi jiray familkaygan biilay I was fucking 20 years old markaan Maraykan imid 2004 ilaa iyo hadda family personal ahay aan familkayga support gareeyaa hooyadayaan garab taagnaa biilay familkayga la biilay gabadhayda Kenya wax ku baranaysay waa la biilay waan biishay gabadhayda waa anaa biilanay Kenya wax ku baray waa u dacwado waa soo dhoofiyay Maraykan keensaday high school ay ka qalin jabisay military ay gashay way ka soo graduate gareysay naag cadeed ku taagan waaye and she has a good future wax aad ka xun tahay marka inta faca qabsadeen walaashay haday ka maqlay afkaaga ka maqlay walaashana waxay tahan ka saar samsam ka bayare 2019 Maraykan imaatay sidaraad ku aragtay waxyara ku xusuusinaa xaqdi iyo xaasidnimo iyo ka daba wareegad aniga xal igu sheegaysa
laakiin xaqiiqiyan ku taabsiinaya adigu hadda inaan ogahay ma ogid laakiin inaan ogahan ku sheegay maalinkan Highlander ka soo qaadaynay aniga Samsam gaariga Samsam ay soo qaadanayso tiyoora aadnay Snapchat kan soo gelinay maxaa tiri Abdinaasir waa taad wacday if you remember ani ma kula joogin Allah in adeerkayo iga dhigshan kuno oo down payment hatta haddaan gaari iga dikarin maxaa kugu dhacay abaayo Samsam kaba yara Highlander loo soo qaaday walaasheeda oo soo qaaday kaba yara oo soo qaaday waa la joogay waxaad ka xuntahay markaan runta u sheego dadka inta faca qabsadeen ayaad qabsan weeyday aw gabadhaadi aw sharcigaagi sharci ma haysataa beena aan ka